waxaan rabaa horta inaan idiin sheego sanad dambe haddaan soo noqdo ma rabo inaan maqlo degmo iga hor timid dhulku dadka leeyihiin degmo inaan maqlo ma rabo reer la faciise maasha allah tabaaraka allah horta waan idin salaamayaa dhammaan dhallinyarada sharafta iyo karaamada leh waxaan salaamayaa madaxda wasiirada waxaan salaamayaa xildhibaanada marwooyinkii ila socday oo ay marwooyinde ugu horrayso walaashay waxaan si khaasa u salaamayaa oo aan jidkaa u soo maray dhallinyarada isboortiska haddaad iiga barateen inaan heeso maanta hees idinkuma socdo waxaan idinku socdaa in aan horta marka koowaad aan la hadlo wasiiradayada iyo xildhibaanadayada maanta halka ku sugan waxaan idiin hayno maaha fan keliya waxaan nahay afkiinni waxaan nahay aragtidiinni idin arkaysa dhibaatooyinka iyo baahiyooyinkaad qabtaan waxaan marka hore salaamayaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya oo aan leeyahay mudane madaxweyne oo ku salaamayaa wasiiradana waxaan u gudbinayaa fariin xildhibaanadana waxaan u gudbinayaa fariin idinkana waxaan rabaa in ilaahay afkayga ay toodiin qaado uu fariinta idin gudbiyo oo waxna lagu helo wax maadaama tahay qof weyn haddaad hadasho hadalkaaga meel gaari waayaa lagu dara marka waxaan rabaa horta inaan idiin sheego sanad dambe haddaan soo noqdo ma rabo inaan maqlo degmo iga hor timid dhulku dadka leeyihiin degmo inaan maqlo ma rabo wallaahi waxaan rabaa wasiiradayada iyo xildhibaanada aanu ku leenahay dowlad deegaanku inay u dagaalamaan inaanu helno gobol ay sida kuwa kale loogu maamusanay dhulka intaa leegaan leenahay hal degmo u maraleey waa degmadii awbarre waa degmadii lafaciise waa degmadii maxaa inoo diiday gobol horta taas waxay iga tahay inaynu helno gobol ay leeyihiin dadkan u dhashay dowladda deegaanka ee ka mid ah ee ummadda soomaalida ku nool taa waa welibana wasiirada iyo xildhibaanada waxaan rabaa inaad noo doodaan maadaama annaga na matashaan taa markaan ka gudbo wasiirka waxaan leeyahay wasiirka isboortiska dhallinyarada su'aal baan weydiinaya halkaad ku tababarataan yaa markaad imika isdiyaarinaysaan ciyaaraha ka qayb galaysaan meel aad garoodna leediin aad ku ciyaartaan hadda wasiir waad maqlaysaa taana wasiirka isboortiska iskuma jiro weliba waxaan ballan qaadayaa iikaadiin aynu ismaqalno waxaan ballan qaadayaa anoo qof weyna oo magaca dee ummadda soomaaliyeed ku dhexleh in aan idinkala qayb galo oo aan adduunyada uga raadino inamada ay rasay ku helaan garoon ay ku ciyaaraan ay ku tababartaan wasiirkana waxaanu ka rabnaa inuu ka howlgalo annaguna intii aanu ka caawin karno qurba joogtayada inaannu ka caawino oo aan u dhul iyo dhowba galo inaan idiin heeso waxa igala weyn inaan wax idiin raadiyo taasaa igala weynaatay maanta beri baan dowlad deegaanka imid inkastoo dowladdaasi dhacda haddana beri baan dowlad deegaanka imid waxaan ka soo baxay jigjigo waxaan u socday awbarro booramaan u sii socday dhaliishii koowaadaan gudbiyey madaxweynihii markaa waddanka haysta wiil ogaa waxaan gudbiyey laamay malihin jidka intaa leegaan maanta soo marnay in yaroo mitir laamiye malihin dhinaca awbarre ilaa jigjiga haddaad ku sii socotid laamay ma leh maxaa marka ina dayacay taasna su-aashaana waan qabaa waxaa wax lagu raadiyaa ama adduunyada wax lagaga raadsadaa ama wax lagu doono waa isku duubnida hadday idinaan deegaan ahaan aydinaan isku duubnaanin weligii wax ma helaysaan haddaanay xildhibaanadeeda iyo wasiiradeedu noo hadan weligeen wax ma helayno haddaynaan innagu isku hadalna weligeen meel ma gaadhayno marka halkii boorama lagaga soo tababaran lahaa waxaan rabnaa in awbarre iyo lafaciisa lagu tababarto
waxaan aad idinka mahad celinayaa soo dhaweynta walaalnimada qadarinta ixtiraamka aad tusteen waxaan idinka ballan qaadayaa in aan muddo aan yarayn weliba anoo intan ka badan oo ka baaxad weyn inaan idin imaado la rafaciisa ahaan kaana waa idin ballan intaana waddanka ka maqan inaan halkaa idinku imaado oo idinku dhiirigelino oo idinku turno oo idinku ciyaarno ay wadabaartaan waxaan kaloo idinka mahad celinayaa casuumadii soo dhaweyntii walaalnimadii qadarintii intaana waan idin hayaa waxaana noqotay dad meel igaga yaallo lagu abid iloobi doono waxaan idin leeyahay dhallinyaradayada waxaad tihiin iftiinkayagii araggayagii baa tihiin quruxdayadii baa tihiin hinda caddoosho way taqaanaa jid ma soo maro laakiin markii laygu yidhi 6 jeer oo isku xiga ayay dhallinyaradaasi badiyeen ee fadhiimo oo nanayaa jidkaas soo maro idiin hambalyeeya oo idin garab istaagaa way igu weyneen maanta maalin ay iga farxad badantayda ma jirto haddaan dee dhowr iyo 20 dhalinyaro isku duuban ee 6 jeer koobka qaaday haddaan maanta arkay adduunkana magac iyo maamuus baad ku leedihiin waanad ku lahaan doontaan wakaa wasiirkii idiin sheegay hal mar baa idiin dhiban magacii aw barreen kiinana ku daray insha allah.